إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sida walaalkeen uu inoo sheegay, mawduuceenna wuxuu ku sheegay aayad qur'aanka ka mid ah oo weliba fi suurati tawba juz ka mid ah. aayadda juz ka mid ah ayuu cunwaanka mawduuceenna uu ka dhigay, oo ah waridwaanun min allaahi akbar. sidaas ayuu walaalka ii soo gudbiyey, jazaahu allahu khayran. waa mawduuc runtii aad iyo aad u weyn. waa juz oo aayaddaas ka mid ah waridwaanun min allaahi akbar, macnaheeduna uu yahay raalli ahaansho ilaahay subxaanahu watacaala oo addoommadiisa ka raadi noqdaa. ridahaas ayaa wax walba ka weynin badan. raalli ahaanshaha alla uu ka raadi noqdo ayaa wax walba dadka ahlu jannaha ah kaga weynin badan. nicmo kastoo la siiyey taa ayaa kaga weynin badan. aayaddaas sidaan sheegnay juz'un min aaya wey, waxay ku jirtaa fi suurati tawba. aayaddaas waxaa ka horreysay oo laga hormariyey, yacni juskaas aayadda ay ku jirto iyo aayadaha ay ku sugan tahay oo sifaadka dadka mu'miniinta iyo waxay helayaan ah alle agtii ay ku leeyihiin. waxaa ka horreeyey munaafiqiinta oo rag iyo dumar ah, sifaadka iyo tilmaamaha ay leeyihiin iyo waxa ilaahay ugu talagalay, aakharo ugu talagalay oo cadaab ah iyaga iyo kufaartuba naar inay leeyihiin ah. aayaddaasaa ka horreysay. markaasaa aayadahaas baa ka horreeyey. markaa kadib baa aayadahan la daba dhigay. waxaa loo daba dhigay oo aayadahan ilaahay noogu sheegay oo raadi ahaanshaha ilaahayna nala kugu sheegay inuu wax walba ka weyn yahay, qofka mu'minka ahi in uu iska ilaaliyo tilmaamahaas munaafiqiinta ay leeyihiin, kuna sifoobo uuna ku tilmaamnaado dadka mu'miniinta oo rag iyo dumarba leh sifaadka ay leeyihiin inuu ku tilmaamnaado la doonayo. marka arrintaas baa maaragtay sababta loo soo sheegay wey. waxaa ka horreeyey aayaddan waxaa ka horreeyey allah oo odhanayo almunaafiquuna waalmunaafiqaatu bacduhum min bacdin ya'muruuna bilmunkari wayanhawna cani ilmacruuf wayaqbiduuna aydiyahum nasu llaha fanasiyahum ina almunaafiqiina hum alfaasiquun. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. الله حوليه المنافقون والمنافقات، رجع يدمرك
nifaaqa ku sifoobay munaafiqnimada ku sifoobay qaarkood qaarka kale ayay isla yihiin macnaa awliye isku yihiin wey ayaga isleh markaasaa sifaadkoodii la yidhi ya'muruuna bilmunkari wayanhawna cani ilmacruuf waa cagsiga dadka mu'miniinta ah waxay isfaraan wax alla wixii munkaroo sharciga uu reebay oo allah uu reebay ayay isku tirtirsiiyaan samayntiisa la sameeyo oo isku boorriyaan waxay iska reebaan wax alla wixii macruuf ahoo wanaag ahaa oo allah iyo rasuulkiisa ay fareen ayay iska reebaan kufrigiibay isku dardaarmaan iimaankiibay iska reebaan munaafiqnimadiibay isku dardaarmaan yacni waxa waaye ikhlaaskii iyo tawxiidkii iyo sunnadiibay maaragtay iska reebaan bidacdiibay isku dardaarmaan macaasida isku dardaarmaan daacadoo dhan way iska reebaan taa waa sifo xuno ay leeyihiin sifada labaad waxa weeye wayaqbiduuna aydiyahum waxa weeye gacmahooday laabaan oo loo jeedo khayrka uma adeegsadaan haddii ilaahay xoolo siiyo sakadii ay dadka fuqarada iyo masaakiinta iyo ducafadu ay ku lahayd ma dhiibaan oo ma bixiyaan dariiq khayr ah xoolaha kuma bixiyaan sharta unbay ku bixiyaane khayrkay gacmahooda ka laabtaan hadday waajibkii tahay iyo hadday shay manduuba tahayba labadaba wax khayr uma adeegsadaane sharta ayay u adeegsadaan markaasuu rabbi wuxuu yidhi nasullaha allay iloobeenoo daacadiisoo dhan bay ka tageen ku camalfalkii cibaadadii salaadii soonkii acmaashii khayrka ahayd oo idil bay ka tageen markaasuu fanasiyahum allana uu ka tegeyoo maaragtay uu iloobay macnaha nisyaanka halka waxaa loo jeeda macna tarki waa ayagana cadaabku ilaahay uga tegey subxaana wa tacaala markaasuu alle tilmaamay munaafiqiinta inay dad faasiqiina yihiin rag iyo dumarba daacada ilaahay kuwa ka baxay alkhaarijiin can daacati illaahi markii tilmaamaha xun ay leeyihiin la sheegay ayaa waxa ay alle agtii ku leeyihiin maalinta qiyaamahana ilaahay raaciy wacada allahu almunaafiqiina walmunaafiqaati walkufaar wacdi waa ballanqaad ilaahay uu ballanqaaday in allaha laa yukhlifu almicaad ilaahayna ballanqaadka kama baxo allah wuxuu ballanqaaday ragga munaafiqiinta ah iyo munaafiqaadka dumarka ah iyo gaaladaba kufaarta kufriga caddaystay laanna nifaaqa waxaa la kufri caloolaad bay wadaadadu yidhahdaan daahirka islaamnimo muujisana dadkii buu jihaadka u raacayaa mu'miniintii salaadii buu masaajidka la gelayaa inuu sooman yahay dadka markuu la joogo istusaaya islaamnimadoo muujisanaya laakiin xagga qalbiga ayuu kaafir ka yahay walidaalika kaafirkan kufrigiisa caddaystay muslimiinta munaafiqan ku dhex jira ayaa uga dhib badan walidaalika ilaahay wuxuu leeyahay ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar munaafiqiinta dadka noocaasa xataa kufaarta waa ka sii hooseeya naarta meesha ay ka gelayaan darajada ugu hooseysa leeyihin muxuu alla u ballanqaaday saddexdaas yacni ragga munaafiqiinta ee dumarka munaafiqaadka iyo gaalada caddaysatay kufrigii naara jahannam naartaa jahannama la yidhaahday leeyihiin weliba ayagoo khaalidiina fiihaa ay ku waarayaan weligood ay ku jirayaan leanna kufri qofka ku dhintaa gaalnimo qofka ku dhintaa oo ilaahay kufri la hor istaagay munaafiqnimo naartaas ayuu ku waaraa weligii ka bixi maayo walciyaadu billaah markaasuu rabbi wuxuu yidhi hiya xasbuhum waa midda ku filanay waa naara jahannam baa ku filan waa taas wey walacanahumullah ilaahna wuu lacnaday oo ilaahay naxariistiisu ka fogeeyo ka dheereeyey raxmad alle marna ma arkaan walahum cadaabun muqiim cadaab daa'ima oo muqiimahoo weligii jiraayo ayay leeyihiin oo alla agtiisa ku leeyihiin weyaan marka sifaadkaas xun markii la sheegay yaa taxdiiran min haaulaa kuwaas oo laga digaya baa dadkii mu'miniinta la leeyahay war sifaadkaasay munaafiqiintu leeyihiine idinka iska ilaaliya haddaa mu'miniintii tihiin oo sifaadka ay mu'miniinta leeyihiin yaa loo tiriyey tilmaamahay leeyihiin baa la sheegay alla wuxuu leeyahay waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaa'u bacd ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar wayuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaa
ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. marka waa maxal shaahidku waa kana dadka mu'miniinta ragga mu'miniinta ah oo alle iyo rasuulkiisa rumeeyay gabdhaha mu'minaadka ah ee alle iyo rasuulkiisa rumeeyay bacduhum awliyaa bacdin qaarkood qaarka kale ayay awliye isku yihiin kuwa isku gargaaro isku kaalmeeyo isxiriiriyo ayuu ilaahay ka dhigay saasuu rabbi sifadooda ka dhigay sifadoodu waxay khilaafsan tahay tii munaafiqiinta ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani lmunkar munaafiqiinta awal maxaan ku soo sheegnay ya'muruuna bilmunkari wayanhawna cani lmacruuf oo ahaa kuwan cagsi weeyo macruufkay wanaagga ayay dadka faraan ayagaa isfara ummaddana way faraan munkarka iyo waxa shareecada ay diidan tahay oo kufriga u horeeya shirkigana way iska reebaan tan labaad ilaahay ateecaan wayuqiimuuna salaa salaadii bay oogaanay tukadaan meesha munaafiqiinta aysan cibaadaysanaynin ilaa hadday tukanayaan riyaa iyo istusus inay u tukadaan mooye ayagu salaada way oogaan wayutuuna zakaa zakadana way dhiibaan meesha ilaahay uu yidhi wayaqbiduuna aydiyahum munaafiqiintii gacmahooday laabaanoo khayrka kama bixiyaan kuwan wayutuuna zakaa zakaday dhiibaan way bixiyaan wayutiicuuna allaha warasuulahu allah iyo rasuulkiisana way ateecaanoo wixii allah iyo rasuulkiisa ay amraan way fuliyaan wax alla waxay allah iyo rasuulkiisa ka reebaanna way ka haraan markaasuu rabbi yidhi ulaa'ika sayarxamuhum allah dadkaas allah ayaa u naxariisan maxaa yeelay ina allaha casiizun xakiim alla waxa weye waa alla cize iyo sharaf oo dhanba leh haalib ahoo cid ka haalib noqon kartaa jirin waa alla xakiim ahoo xikmo leh oo yadacu alashyaaa fii mawaadiciha almunaasib ashyaadana shay walba meeshii ku habboonayd ayuu rabbi dhigaa subxaanahu wa tacaala markii intaa sifaadkaa wanaagsan ay leeyihiin lasoo sheegay oo khilaafsan sifaadkii munaafiqiinta ayaa haddana waxay alle agtii ku leeyihiin qiyaamaha markii la tago oo wanaag ah baa la sheegi sida gaalada iyo munaafiqiintaba loo sheegay waxay alle agtiisa ku leeyihiinoo ciqaab iyo cadaab ahaa iyo lacnad kuwan cagsigeeday leeyihiin wacada allahu almu'miniina waalmu'minaat جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وعد الله حب قاضي المؤمنين الرق مؤمنين تاه وإلهي رسولك سر ميسن والمؤمنات هوانك مؤمنات كاه والله رسولك سر ميسن حب قاضي جنات جنوين بيروا وين وتجري من تحتها الأنهار وبياشو إسكت هو الصعدان كيده هو هوستيدا داره هو هوستودا بيره هو أي بيس كصعدان أنهار تسوال جمعيو نهر لمدين أنهار اللي وبيالو وبياش القرآن إلهي كل شيء في سورة محمد وأفر وبيوها مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى أفرتا وبيوي أي إليه كان كوباد وحوي بيئ نظيف وهو ولقد أنا قرمين هلا بيني كان لباد وحوي بيئ اسك الصعود وبيئ اسك الصعود وعانو أو ضدن كود ما شاء الله وياه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ضدن كيس مرنا وسس بدل إنه وناك وكلي وياه أنا هلا بيني iyo wabiyaal malab oo iska socdo wabiyaal khamra ah oo iska socdo khamradan adduunka aan la mid ahayne mid aakharo la fiiha qawl wala macnaha yuzafun laguma wareero mid lagu waashana ma aha aqligaagana mid uu ka tagaya ma aha madax xanuunna ku arki maysid anhaartaas ay ilaahay agtiisa ku leeyihiin wabiyaashaas ay leeyihiin wabiyaashaas oo rabbi noo soo sheegay subxaanahu wa tacaala xagee bay ku sugan yihiin yaa حقيقة كسوغيه في جنات عدن الله حليه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار يعني وحويان
خالدين فيها بكحكت ولقود وكجرايا لقى صاري ماي وكواريا كدمن مايان كدقوب مايان ونعمده كجرتو إذا كدمات الأورن مايو ولقود وكجرايا وخالدين فيها وحكلوا ليه مساكن طيبة قريون وناكسن حقيبي كله قريها وناكسن في جنات عدن نجان شهد جندي سوى مد ولقد يكون نجانية وين مرنا لقى سارين في جنات عدن انت مركي الله شيء هذا فيري وحي الله أكتيس كليهن جنوين بيرواوي وبيال كلا الدول وكوا ولقد كواري وريول وناكسن بينا جنو ولقد نجان شؤون لحظة هذا أي تهاي يكون حجريان مركاس ربي وحيري حو آيات كو ختمي انت عن سو شيغنا نعمه متكوين بدن رب نو شيغ سبحانه وتعالى حيري ورضوان من الله اكبر ورضوان رال اهانشو ومن الله الا حقي كاهاتي اكبر وين بدن ومحي كوين تahay جنات كان اشيغيس جنادان markii ridaha ilaahi loo eego loo fiiriyaa waxa way wax yar way ridaha ilaahi ba ka weyn nicmad kasta kulligii haduu ilaahi qofka ka raadin noqdo waa iloobayaa markaasuu rabbi yiri dhalika huwa alfawz alazim ridaha ilaahi oo la helo waliibaan an liibaan kale ka weyn jirin wataa weeyaan marka aayada marka waxa loo keenay sifaadkaas wan wanaagsan inaynu ku sifoono iskana ilaalino tilmaamaha munaafiqiinta ay leeyihiin waa inuu qofka mu'minka ah rag iyo dumar wuxuu noqdaba ku sifooba taacada ilaahi inuu u istaago waajibaadkii oo kamid tahay al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar khayrko dadka loo sheego sharta oo laga reebo salaadii oo la oogo zakadii oo la guto waxay dhaxashiinaysaa qofka inuu jannadaas iyo ridaha ilaahi oo helo jannada in lagu abaal mariyo marka hore dabadeetana ridaha ilaahi oo kasii darajo sareeyo oo an-ni'matul 'uzma la yiraahdo nicmada ugu weynka badan ay inuu ilaahi siiyo subhanahu wa ta'ala ridaha ilaahi subhanahu wa ta'ala oo wax ka weyn aysan jirin Allah quraanka wuxuu noogu sheegay waxyaalo badan oo ka hor istaagayo inay jiraan waxyaalo badan oo ka shaqlinayo inay jiraan marka inaadnan anagu aanan ridaha ilaahi helitaankeedii raadinteeda aysan waxyaalahaas naga mashquulinin oo kamid tahay min maladaat alxayaati dunya adduunka waxyaalaha macmacaanka ah oo wanaaga dadku ay jecel yihiin ay ku tartamaan yaani inaysan naga mashquulinin baa la rabaa waxana la kugu dhikrinaa waridwaan min allah akbar loo leeyahay wala kugu sheegayahay waxa weeyaan waa inaysan arintaasi digitaan waa inaysan naga mashquulin la kaga digayo fi suurat al-hadid Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay markuu adduunkan sifeeyay oo waxa bani aadamku taacada oo kaga mashquula ah ridaha ilaahi helitaankeeda oo kaga mashquula markuu tilmaamay wuxuu yiri ilamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zina وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا في رأي داس أدونكم إلهي نو سوري بني آدم كوحة مشغولية وطاعديسي iyo cibaadadii iyo ridaha ilaahay inuu gaaro ka mashquulin kara waa adduun jaceelkaas adduunka lagu tartama waxa weeye Allah wuxuu leeyahay ogaada dad yahow adduunyadanba inay tahay lacibun wala wax lagu ciyaaro oo waqtiga dantii maslaxadaada aad kaga daahdo oo wax qiimaha leedahay aanan jirin wasiinatun wax dhalaal iyo qurux weey ayada dhama indhaha jecelihiin وتفاخر بينكم إن أسكو فانتان إذنك هي وتكاثر في الأموال والأولاد فربضني هاد بطستان أسكو فانتان أنا كمال بدن أنا كأولاد بدن أنا كجاه سري أنا سان يعني تاسو كروي مركاسو أدونك نوع عاسى حال كيس محولة مديان كمثل غيث أعجب الكفار نباته
حلمد يهي روب انت السماء كسوداي دول قللان كسوداي دوغ او دشاي oo doogii dhulka dhan wada cagaar oo noqdo qurux kaliya oo noqday weeyaan markaana dadkii beeralayda ahaa nabaadkaas iyo dooggaas soo baxay oo cajab geliyo dhulkan qurux badana doogga saaran fiiri quruxdiisa indhaha cagaarka indhaha u roon markaasuu uma yahiiju fataraahu musfarra durbadii waa qallalaya mid eber buu noqday dabaysha hadba dhinac u kala tuurta uma yakuunu xutaama burbur buu noqonay markii ka bacdi soo ma jeeda doogga hadda soo baxay ee dhaldhalaalayay muddo yar kadib waa qallalaya marka hore waa dharaya waa qallalaya kadib dabaysha kala bitinayso adduunkuna sidaas oo kala weeyaan laakiin aakhira markii la tago laba arrin baa jirto wa fil aakhirati cadaabu shadiid dadka ilaahay aanan ateecin oo ridaha ilaahay aanan helin aakhira cadaab adag bay ku leeyihiin cadaabkaasa qiyaamaha yaala waxaa kaloo yaalo maghfiratun min allah dambi dhaaf iyo waridwaanun raadi ahaansho xalshaadkeena wakaa waridwaan maghfira waxa waye marka hore dembigaada inta lagu dhaafo adoo daahira jannada ilaahay gelaysa adoo najisa ma gelaysid oo dembi wada wato markii lagu daahiriyo baad jannada ilaahay gelaysa markaa jannada gashana waridwaanun min allahi akbar adduunkuna waa noocaas marka inaan iska ilaalino yana lakugu talagal allah saasuu u leeyahay subxaanahu watacaala wuxuu kaloo rabbi subxaanahu watacaala leeyahay في سورة آل عمران حيالها شواغلك رضاها إلهي قفك كمشغوليو وانا لك قد دقيو أيو رب النوشيق سبحانه وتعالى ورب إليهي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار إلى آخر الآية شهد الله نفسه إلى آخر الآية وحو الله ليه سبحانه وتعالى dadka waxa loo qurxiyay oo taacada ilaahay ka hor istaago oo wanaag yaani ma aragtay khayrkii iyo radihii ilaahay ka hor istaagayahay waxa weeyaan waa zakharif adduunkan ma aragtay ayaa ma aragtay ka hor istaagay zuyina linnaasi dadka waxa loo qurxiyay xubbu shahawaat waxyaalaha macmacaan jacaylkooda ay jecel yihiin ragga min annisaa'i dumarkii ka mid ah dumarkuna ay raggu jecel yihiin ragguna ay dumarkii jecel yihiin walbaniin awlaad markay dhashaan ilmuhu waa la jecel yahay adduunkii aad baa loogu waa marmarka qaarkood aakhiradiisuba dhaafiya jacaylkooda ayaad arkaysaa walqanaatiir almuqantarati min aldahabi walfida xoolo aad u tiro badan oo dahab iyo fida ah qalin iyo dahaba qofku aad buu u jecel yahay inuu helo والخير المسومة والأنعام فردها أنعامته اللو يقانو قيلي لؤذي أري سدح راس أنعام اللي هذاي هي فرده بجعلين هي والحرث بيره بيروين أسندين ووين ويشعو بيد والبق وكبحي مركز تقول لنا وحاس أيا شواغل كأدونك كمشكولين أيوه محوي الرب مركو أنت كسو شيكي ذلك متاع الحياة الدنيا وركاو حوي وأدون حديثه رضاها إلهي إذا كمشغولين والله عنده حسن المآب الله أكتس وحا أمال لون نقضى كان أقونا أكبدا وجنة سيا إلهي أكتسا مركي انتها اللي يري ورب وحوليه حسن المآب كيبا الله صفة سرية مال لون نقضى كان أقونا أكبدا أي الله فسر لليه قل أنبئكم بخير من ذلكم ورما إذين شيئا كله النبي محمد قد كتر ما إذين ورما ما إذين شيئا adduunkaas iyo zakhaarifta iyo mataacu alxayaati addunya waxay kaga khayr badan ma idiin sheegaa haa rabbiyo noo sheego liladiina ittaqow cinda rabbihim jannaatun tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha dadka ilaahay ka baqa alla agtii waxay ku leeyihiin
jannooyin oo webiyaashi aan soo sheegnay hoostooda socdaanay weligood ku waarayaan wa aswaajun mutahhara xaasas oo daahir ah wa ridwaanun min allah waa taa haddana fiiri rido ilaahay marka jannadaas helaan haddana ridihii ilaahay bay helaya ridwaanun min allah wallahu basiiru bilcibaad kuwaas waa kuwee marka dadka liladiina ittaqow cinda rabbihim liladiina ittaqow laleeyahay waa kuwa ilaahay wuxuu yidhi aladiina yaquuluuna rabbanaa inana aamanna kuwa yidhaahda wey rabbigeenow inanaa aamanaa adaan waan rumaynay adiga iyo rasuulka iyo rusushaada iyo kutubtaada iyo aakharadii kulligaan rumaynay aamanna fakfir lana dunuubana adduunka intaan joogno dunuubteenna noo dhaaf rabbiyo waqinaa cadaaba annaar naartaasna cadaabkeeda naga ilaali asaabiriina waa dadka sabro macaasida ka sabro qadarka ilaahay ku sabro yacni maaragtay maxaa la yidhaahdaa taacada ku sabro dadkaas weeyaan wasaadiqiina kuwa allah rumeeyo rusushiisa rumeeyo kutubtiisa rumeeyo yowmal aakhira rumeeyo malaa'igta rumeeyo waa kuwaas weeyaan waalqaanitiina kuwa khushuucsan oo ilaahay ateecsan mutiiciinta ah weeyaan waalmunfiqiina kuwa xoolahooda wax ka bixiyo oo xaqii lagu leeyahay oo masaakiinta ku lahayd aqribada ku lahayd awlaadda ku lahayd aswaajta ku lahayd xoolahooda wax ka bixiyo waalmustakfiriina bilasxaar saxarka markii la gaaraa wakhtiga dadka ay hurdayaan inta hurdada ka soo kacaan istikfaar ilaahay weydiisto oo ilaahu noo dambi dhaaf yidhaahdo dadkaas weeyaan dadka iska leh ilaahay mutaqiinta jannaadka iska leh waa dadkaas wey marka dheeldheel lagu heli maayo wax dheeldheel iyo sahal lagu helayo ma lehe shaqay u baahan tahay dadkaas ridaha ilaahay walaalayaa waana loo sheegay wax alla wixii ridaha ilaahay naga hor istaagayey waa zakhaarif addunya wey mataacu alxayaati addunya wey inaa iska ilaalinaa la rabaa ridwaanka ilaahay wax walba inuu ka sarreeyo sida aayadaha qur'aanka aan tilmaamnay ridaha ilaahay axaadiista nebigana dhowr xadiis buu nebigeenna kaga warramay salawaatullahi wasalaamu calayh xadiidka imaamu albukhaari imaamu muslim saxiixankooda ay ku soo saareen xadiis abi saciidin alkhudriyi radiallahu canhu abu saciid alkhudri nebiga uu ka wariyey wuxuu leeyahay ana nabiya sala allahu alay wasalam qaal nabigeenna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ina allaha tabaaraka wa tacaala yaquul wa xadiis alqudsi buu ka warramaya allah baa wuxuu odhanay maalinta jannada qiyaamaha markii la tago mu'miniinta jannada ay galaan ayuu allah yaquulu wuxuu leeyahay liahli aljanna dadka jannada galow la hadlaya yaa ahla aljanna war dadka jannada ku jirayow waa loo dhawaaqay markaasay fayaquuluun waxay odhanayaan labayka rabbanaa wasacdayka allahayo waa ku ajiibnay liibaantaadee waa ku ajiibnay bay yidhahdeen labayka rabbanaa wasacdayka bay yidhahdeen markaasuu alla wuxuu leeyahay ila jannadii nicmadan soo sheegaynoo dhan bay haystaane markaasaa waxaa la leeyahay hal radiitum dadii ahlu jannaha mar haddii jannada aad gasheen nicmo walba aad haysataan soo raalli maahiniin ma raalli noqoteen wey markaasay waxay leeyihin fayaquuluun wamaa lanaa laa nardaa waqad acdaytanaa maa lam tucdi axadan min khalqi allahayo maxaan u raalli noqon weynay adiga oo na siiyey wax aadan axad addoommadaada ka mida aadan siinin ayaadna siisay oo dad badan baan jannadii ilaahay helin oo cadaab ku jiro annagana nicmadaasaadna siisay marka maxay tahay waxa noo dhiman weeye markaasuu fayaquulu allah wuxuu leeyahay ana uctiikum afdala min dalik waxaan idin siinayaa jannada aad ku jirtaan iyo nicmadaad haysataan wax ka fadli badan ayaan idin siinayaa buuri markaasay la yaabeen oo nicmadan wax ka badan miyaa jiro oo jannadaana markaasay qaaluu waxay yidhahdeen yaa rabbi wa ayu shayin afdalu min dalik oo muxuu yahay allahayow nicmada aan ku jirno shayga ka fadliga badan oodna siinaysaa muxuu yahay markaasuu alla fayaquulu wuxuu rabbi leeyahay uxillu calaykum ridwaanii falaa askhatu calaykum bacdahu abadaa waxaan idinku dejinayaa raalli ahaanshahaygaan idin siin idiinna caroon maayo markaan idinka raalli noqdo dabadeed weligii caro ilaahay arki maysaan nicmo ka weyni badan oo ay heli lahaayeen markaa ma jirto weeyaan waa nicmo aad u weyn yacni ilaahay subxaanahu watacaala ridihiisa uxillu calaykum ridwaanii
فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا الآد قيمة بضم إلهي سبحانه وتعالى الله وحن ويدي سننا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إن أورده إساس نسيه أو سنو عرون أيان الله ويدي سننا. رواية إمام الحاكم في مسنده أقوالنا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وحوي نبينا عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الرسول كان وحويري إذا دخل أهل الجنة الجنة هذا يدتك أهل الجنة هذا جنة قلان رقي دمربا قال الله بوحولي قال النبي وحويري يقول الله عز وجل الله وحوك أرانا يا دتك أهل الجنة هل تشتهون شيئا فأزيدكم وروحاد جعلان يسان مجرى أهل الجنة يو أنا ذين كرديو وحيدا كدما وأجعشهين وأنا ذين كرديو مجرى وأنا ذين سيو ساشا سألويدي فيقولون مركز وحيكون جوابيان ربنا وما فوق ما أعطيتنا ربي يا نو وحا آدنا سيسا وحا كسر رياه حين أنا ما بقرانين ما وحا آدنا سيسا نعمة آن هيسانو نعمة كوين ميان ربي وحلينا قال مركز نبي وحويرف يقول الله وحوليه رضواني أكبر أنا راضي أهان شهيقة أي كوين بدن نعمة داس آت هيساتان وتاوي وموضوع إني وهذا أنا كهليني ورضوان من الله أكبر ويان رضواني أنا قرأ أهان شهيقة إذا كان راضي النغضة أي أكبر نعمة آت كجرتان كوين بدن ويان سياسة كوين بدن مركا ولا ليال رضاهاس إلهي وحا لغو هلو نعمدا إلهي وحا لغو هلو رضاها إلهي وحا لغو هلاهي waxaan soo aragnay wax alla wixii naga mashquulinayay in loo sheego oo adduunka la daba ordo in la iska ilaaliyo arintaas waxa lagu helaa marka waxa weeye waa al-ikhlaas wal mutaabaca waxa lagu helaa amalkeena ilaahay u baraxtirno oo aan cid kale la wadaajin amalkeena aan sameeynayna iyo taacadeena annabi maxamed ku waafaqna salawaatu allah wasalaamu alayhi oo aan bidca la imaanin sidaasna la karraba hadaltiin ikhlaaska inta quraanka la isku faraahi aad u tira badan tahay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay fi suurati az-zumar wuxuu leeyahay fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ala lillahi dinul khalis war ilaahi aabud oo kaligi amalkaaga iyo tawxiidkaada u saafiyeel hayelay asaga iskale yaani maartay توحيدك خالصك صغا اسكله توحيدك خالصك الله اسكله آيات كله واسلا في سورة الزمر كجرتاهي وحولي الله قل الله أعبد مخلصا له ديني قل وحاتر هذا الله أعبد الله كليا عابدها مخلصا له ديني أنا diinkayga iyo tawxiidkayga u safiyeelay cid kale maartay ilaahay maartay la caabudi maayo sidaasana la karaba fi suurati ghafir allah wuxuu leeyahay huwa al-hayy la ilaha illa hu fad'uuhu mukhlisina lahu ad-din alhamdulillah rabbil alamin allah wa allah ma'bud xaq lagu caabuda oo san jirin isaga mooyee marka rabbi kaliya caabuda amalkiina u safiyeela الحمد لله رب العالمين مركا أرنتاس وحوي إخلاص هدي عمل كاج إخلاص لجواهي أذن إلهي وبرحترين وحوي أو الله كلية أذن عمل كذا أسافيلين بدك لو قدرته هذا بريدة إلهي كلية بريس عبد أهرسه الله كلية ترساره الله كلية دمر كوجر وقيشه أساق كتري عد كله الرادين وجده الله كريه تلصاره الله كريه كالمه ويديسو الله كريه مغنقل الله كريه وقورع waxa way tawxiidkaada ilaahay u saafiyeel way mutaabacadana waana la karaba mutaabaca wa in nabiyaha muhammadna lagu raaco walidalika aayada fi suurat al-kahf ku jirta
الله وحوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فليعمل عملا صالحا مركز إليه ومتابعة ذي يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام كل عملك صالحا ومتابعة ذي ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. أيضا والشرك لقد إخلاص كيو ألا كري عمل كاد أفرح تروي عدك لها عقود سيدة الإمام السيوطي كتاب كيس مفتاح الجنة وكسو قوريو عن سعيد ابن جبير رحمه الله. سعيد بن جبير وتابعي قاسد قرن نيسان مفسر كأه وحويري إلهي ما أقبل بوير لا يقبل قول وعمل إلا بنية ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وحوليه هذا وحلقوه هذا وعبادة أفكار لغا شيغو عمل قلبك إيا حبنها إيا عربك لغا عمل فلو لما أقبله إلا إنه وقف كان نيو خالص توحيد لي ما دمه توحيدك إخلاص إنه لي ما دمه. ولا يقبل قول وعمل ونية قول أتكو هذا الشيء إيه فعل آت سميسي إيه قلبك هذا إخلاص أتكلتمد أيغانا وحكو تري مايان لما أقبله إلا بموافقة السنة. النبي الله محمد سنة دي سلقرة عموية لما أقبله عملك مبتدع صاحب كيس أو بلاوضه لما أقبله إلهي ما أقبله سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله كتاب كيس الفوائد وحكوير هذا العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه. وحوليه عمل قفك أو سمي هذي عمل كاس إخلاص لقواي ضيشنا لقواي والنبي قال له قد ضيذ لقواي قفك عمل سمي إلهي درتي وما سمي النبي قال لكم موافقين مركاس وكله قفك وحو لمدي هو يري قف مسافرة أو رب الزاد إنه قاط زادكي أو قادني صحيح وقادني لأنه مركز سفر يسوه وإن دركاجي بورصة هذا كحر حرتها وحي أدعوني لهاي وحي أتكون ولا لهاي وأنا ديارستها مسافر كاس وحو لمدي هو يري وبورصة دي سي إجرابك أوتي بالكان دنبسك اللي كبوحي ماشي عندي سي عبيتان كيس كوش ران لها دنبس بو كبوحش دنبس وقت قاين الدبك مركي وحش بابا باش عد ميا لعوني كرا ماي دنبسكي وحو كبوحش بورصدي او تو دشان دديسو كبوحي وانا ku safray markuu jidbaha gooye marayo oomay ama gaajo ay qabatay wax inuu cuno rabo haduu la soo baxo damaski cuno ma noqonahay maya amalkuna sidaas oo kale noqonaya maalintaas aad u baahanto qiyaamo la yiraahdo ku anfici mahayo kuma anfacayo. marka waxa la rabaa ilaahay dartiisna u sameeysid iyo nabigana ina ku raacdo bidcooyinka la iska ilaaliyaa rab. sheekh al-Hafiz al-Hakami kitabkiisa Ma'aarij al-Qabuulka markuu gabayadiisa ikhlaaska tirinay wuxuu leeyahay shardu qabuul as-sa'i an yajtami'a fihi isabatan wa ikhlasun ma'a lillahi rabb al-'arsh la siwahu muwafiq ash-shar'i alladhi irtadahu wa kullu ma khalafa lil-wahyayn fa innahu radd bighayri man. wuxuu yiri amalka shuruuda lagu aqbalaahi waa in laba shay oo kulansado isaaba oo loo jeedo muwaafaqatu sunnah sunnadii nabiga la raaco mutaabacadii way iyo ikhlaas maca iyo ikhlaas labada in la leeyahay oo yaa loo saafiyeelaya amalka ikhlaaska loo sameeyay lillahi rabbil arsh la siwa alla kaliya loo sameeyay cid kale aan loo amal falanin muwaafiq ash-shar'i alladhi irtadahu muwaafaqadina wata sharcigi oo ka raadin noqdo nabiga Muhammad leeyimidna inuu amalkaagu waafaqsan yahay wa kullu ma khalafa lil wahyayn mid kasta kulligii oo labada waxyi kitaabka iyo sunnada khilaafo amal kasto la sameeyo oo sunnadii iyo maarata quraanka khilaafa fa innahu radd bighayri mayn wal raddinaya been la'aan bighayri kadibin wal raddinaya. marka amalkaaga qof walbo ka ilaali riyaha istutuska ka ilaali halaga sheega ka ilaali shirkiga ka ilaali bidcada ka ilaali si qofka uu badbaado oo ilaahay maalinta qiyaamaha
أو هلو رضاها إلهي أكسو شيكينيني ورضوان من الله أكبر سيان هلنا مركا كلمة دي إن شاء الله تعالى انت سيان كسو ختمية يوحان ليهي إلهي سبحانه وتعالى وحان كوي دي سنين بأسمائه الحسنى وصفاته العلى صفات كيسا سرسرية مقعيدي سوى وناكسن وحان كوي دي سنين إنه رضيه ساس أكبر كأه أو نسيه أيان إلهي ويدي سنين ذاتك اللي قهر على النقضة إنه إلهي نقدره هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة، تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.